wanaajinayay nin kolkii au kulaylka uumiga dirku soo qabtay doonaya inuu dirka qayb kasbado oo maxaan ku dhahdaa magac Soomaali leeyahay oo la wareego jabhad aanaf leeyahay ogaadeen iyo dhan ma hina waa reeysaaq waana jilibka ina cagjar ninka laga kari laayay inuu Soomaali state maruna afkiisa soo mariyo ee Maxamed Cumar Ismaan leeyahay imaralka dawladdiisa baraka ahaa laftigiisuna waa reeysaaq ina cagjarnaha afgobaadsadee wuxuu aaminsan yahay fikirka uu aaminsan yahay Maxamed Cumar Ismaan marka ninka maanta noo oranaya ogaadeen ninka ogaadeen ee maanta ugu wanaagsan ee meesha yimiday waa ina cagjar wuxuuna naleeyahay aan wax wada yeelano dekaabad buu kaaga talabay inaad adigu indhayeelato la doonaya inaad adigu indhayeelato aad wax ku aragto inaad dhiga yeelato aad wax ku samayso inaad maskax yeelato aad ku fikirtaa laga doonaya walaal waxaan anigu doonayaa waxa ku jirtay wata ina cagjar haysata gabay aan lahaa shirkii cafta aan ka tirinay ninku dili ninku ugu daawan iyo niman dareemaynin ninku dagi ninku ugu diirsan iyo niman dabaalaynin nin ku daran ninku ugu sii dira iyo niman jirdiidaynin isku dareejo weeyo dhammaan wax isma doorshaan waa duulis kala qaybiyo ku dagaal yimid adigoo digniin qabin haduu damacu ku keeno adoo dayrin doonan marnaba daacad noqonaynin waxa la isku dalraaciyaa xeel dantaada xeelad dantiisa ku jirta inuu dalkaas sabto yiraahdo Soomaali baan nahay qoomiyadaha kale dhulkayna la degana Soomaaliniman iskaga celinayna inuu yiraahdo dantiisa ku jirta laakiin dadka adigu iska arki weydo oo imikaad itaal leegtay ama ka itaal weynta adigu had iska qaban weydo kabihiisa ku seen doonta kabihiisa hoostooda ayaad gali doontaa marka waxaan filayaa in maalmaha soo socda lagu dhawaaqayo xisbiga dirka laga dhawaaqayo meesha la yiraahdo dir dhaba fure ninkii marka la yiraahdaa fure ninkii marko dadkeena dirnimada inaan u bislayna ayaa la doonayaa xaqiiqiyan markaan ka hadlayno waxaan ilaahay hibo oo dhul ilaahay umada kale oo nasiibu ina siiyay kolka laga soo bilaabo halka canfartaan iska galo ee xuduudda Djibouti ee Eritrea xuduudda Soomaaliya Kenya halka ku dhamaato waa dir waxa ku dadbani ilaahay wuxuu ina siiyay inuu wadankeena Itoobiya u talaabay Soomaaliya u talaabay waxa ku kala maqnay burburkii gumaysiga iyo dhibaatadii gumaysigu noo geystay laakiin maanta mar haddii aan soo baraarugnay cid kasta adiga ayay ku hoos iman doontaa oo abaal kugu qabtaa oo danteedu ay ku jirtaa inay adiga kula saaxiibto ee adigu ma baahnid inaad cid la saaxiibto inta doona madaxa lolo Axmed Madoobe waa tagay wuxuu sii socdaa wadadii almaraynika la dhaca Cabdi Ilay hadaanay ka sii xumaanin taa sii maraya isag waa tagay ninka moodayay inuu ku guulaysto Axmed Madoobe wuu tagay waa ogaadeen dhaqankiisa dhamaantiina waa noocaasi weey waxaana la yiraahdaa maskax xabadi martay leeyihiin maskax hadal maro malaha hadalka wana ku dheereeyay waxa la wardirow hore socda wardirow cadawgeena garta war cadow ogaadeen ka xun oo leenahay maanta ma jirto meel kasta oo kale waan ka dabaalanayna oo waa Soomaali la isafkaranayo laakiin ninka nacaska ee badowgay webiga macaanaysanayay waxba la yeelan mayno ee waxayna aan doonano aan kursiga oo ku fadhiyana ku soo fadhiisano xalay waxaan weydiinay Xajaada Nuur mansabka u sareeya hadaan ka qaadano ogaadeen kursiga dir ku soo fadhiiso Xajaada Nuur maxaa dhacay wuxuu yiri nin waliba halkee uu ka yimid ogaadeen ka tagay in jigjiga degaan u lahaa oo ku harayay ma jiro jigjiga marka laga reebo jid waaqayarayo maxaa ku dhada qolada gabooyaha waxa hareeraha ka yaalay waa jaarsa waa gadabuursi waa isaaq waa akisho waa dadka maxaa ku dhada akabaabida u noqonayay marka hadalkayga waxa kaga baxaya dirku horeey u socdo oo dantiisa si quman oo toosa ha u qaato ha u arko xisbigiisa dhisto shirkiisana dardar galiyo isku kalsoonin ha keeno inta afarta qof ogaadeen la daba socdo war aniga waxaan u arkaa oo ka tabsan waayeen sina u kari waayeen darooda dhan isaaqay kari waayeen runta markaan ka hadlayna maxaan runta uga sinaysanayna isaaqo walaalihi helay milyan qof helay xagee laga maraya
meel laga marayo ma jirto war dadka iyaga kaba inoo noqon doonee dhulka ay sidhigina hana ku ceelinina ogaadeen waxaan la yeelano wayna dhibaysaa waa run xaajiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لا إله إلا الله